imaamada tujinaya salaadaha taraawiixda iyo tahajjudka masjidka xaramka bisha barakeysan ee Ramadaan ee sanadan 1442 Hijri ayaa si rasmi ah loo shaaciyay. Sida lagu shaaciyay warqad qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Xarameyn Ash-Shariifayn, waxaa lagu sheegay in imaamnimada bisha Ramadaan ee masjidka xaramka loo xushay 6 ka mid ah culimada caanka ku ah akhrinta Qur'aanka Kariimka. Culimadaasna waxa ay kala yihiin: kow Sheekh Cabdiraxmaan As-Sudays. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Sheekh Cabdiraxmaan As-Sudays sanadii 1961 ayuu ku dhashay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya. magaca sheekha oo dhammaystiran waa Cabdiraxmaan Cabdulcasiis As-Sudaysi. wuxuu Sacuudi Carabiya iyo dunida Islaamka caan kaga yahay akhrinta Qur'aanka Kariimka. qaarinimada waxa uu dheer inuu yahay imaamka koowaad ahna qadiibka masjidka xaramka ee magaalada Makka. sidoo kalena waa madaxa guud ee arrimaha labada masjid ee barakeysan Makka iyo Madiina. Sheekh Sudays wuxuu Qur'aanka xifdiyay isagoo 12 sano jir ah. waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sarena wuxuu ku bartay dugsiga hoose ee Al-Muthanna isagoo dugsiga sare ka baxay sanadii 1979. kadibna sanadii 1983 wuxuu ku biiray jaamacadii la oran jiray Riyaad oo hadda loo bixiyay jaamacadda boqorka Sacuudiya. wuxuuna ka qaatay shahaadada koobaad iyo labaad. shahaadada PhD-dana wuxuu sanadii 1995 ka qaatay jaamacadda Qura. sheekh labaad ee masjidka xaramka sanadkan ka tujin doona waa Sheekh Sacuud Ash-Shuraym. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Sheekh Sacuud Ash-Shuraym wuxuu dhashay Janaayo 1966 wuxuuna ku dhashay magaalada Riyaad. magaca Sacuud Ash-Shuraym waa magac caan ah marka la fiiriyo cilmiga diineed uu leeyahay iyo sida quruxda badan ee Qur'aanka Kariimka uu u akhriyo. shahaada sharafeedka doctorate-ka ayuu ka qaatay jaamacadda Qura ee ku taala magaalada Makka. Sheekh Shuraym wuxuu imaam iyo qadiib ka yahay masjidka xaramka ee magaalada Makka. sheekha saddexaadna waa Sheekh Cabdalla Cawad Al-Juhani. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Sheekh Cabdalla Cawad Al-Juhani wuxuu ku dhashay magaalada Madiina. xifdinta Qur'aankana waxaa baray imaamkii hore ee masjidka Nabiga Sheekh Maxamed Ayuub. Sheekh Juhani wuxuu Qur'aanka xifdiyay da'diisu markay ahayd 16 sano isaga oo tartanka Qur'aanka Kariimka xilligaas kaalinta koobaad ka galay. shahaadada koobaad ee cilmiga Qur'aanka wuxuu ka qaatay jaamacadda Islaamiga ee Madiina. shahaadada labaad iyo tan saddexaad ee cilmiga Qur'aanka wuxuu ka qaatay jaamacadda Qura ee ku taala magaalada Makka. sheekh afraadna waa Sheekh Maahir Al-Mucayqili. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. magaciisa oo buuxa waa Sheekh Maahir Al-Mucayqili Al-Balawi. wuxuu sanadii 1969 ku dhashay magaalada Madiina. wuxuu ka mid yahay culimada caanka ku ah akhrinta Qur'aanka Kariimka. waxa uu sidoo kale sheekhan caan ku yahay aqoonta cilmiga xisaabta oo uu heer sare ka gaaray. wuxuuna macallin ka ahaa jaamacadda Boqor Cabdalla ee ku taala magaalada Makka. 2006 ilaa 2007 wuxuu imaam ka soo noqday masjidka Nabiga ee Madiina. 2008 isaga iyo Sheekh Sudays waxay salaada taraawiixda ka tujiyeen masaajidka xaramka. Sheekh Maahir wixii ka dambeeyay sanadii 2016 wuxuu ka mid noqday imaamada masjidka xaramka iyada oo imaamnimada uu u magacaabay boqorka boqortooyada Sacuudi Carabiya. sheekha shanaadna waa Sheekh Bandar Balila. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. magaciisa oo buuxa waa Sheekh Bandar bin Cabdulcasiis bin Siraaj bin Cabdilmaalik Balila. wuxuu sanadii 1935 ku dhashay magaalada Makka. wuxuuna ka mid yahay culimada Qur'aanka sida uu akhriyo aad loo jecel yahay. shahaadada koowaad labaad ilaa iyo PhD oo cilmiga shariicada Islaamka iyo fiqiga wuxuu ka qaatay jaamacadda Qura. wuxuuna in muddaha imaam ka soo ahaa masaajidka Al-Amiir An-Nuuf ee ku yaala xaafadda Al-Casiiziyah ee magaalada Makka.
2013 wuxuu ka mid noqday imaamada salaada taraawiixda ee bisha Ramadaan ka tujiyay masaajidka xaramka. 2016 boqor Salmaan ayaa Sheekh Baliila u magacaabay inuu imaamka noqdo tujinta salaatul istisqaa ama salaada roobdoonka ee masjidka xaramka. Sheekha ugu dambeeyana waa Sheekh Yaasir ad-Dawsari. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. Sheekh Yaasir ad-Dawsari wuxuu sanadii 1981 ku dhashay gobolka Qaraj koonfurta bari ee magaalada Riyaad. wuxuu Ilaahay hibo u siiyay cod qurux badan oo Qur'aan akhriskana ku wanaagsan. Qur'aanka Kariimkana wuxuu xifdiyay da'diisa markay ahayd 15 sano. kadibna wuxuu cilmiga shariicada islaamka kaga soo qalinjibiyay jaamacadda islaamiga ee Imaam Maxamed bin Sacuud. waqti xaadirkanna wuxuu ka mid yahay macallimiinta ugu caansan jaamacadda Boqor Sacuud. wuxuuna cilmiga ka akhriyaa masaajidka daaqili ee ku yaala Riyaad. waana xogayaha guud ee jaamacadda Amiir Suldaan gaar ahaan qaybta ciidamada qalabka sida ee Sacuudiga lagu baro Qur'aanka Kariimka.